Sacuudiga iyo hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo keedka raashinka qaranku iska kaashadeen la soo gaarsiiyay gobolka Gibiley maanta waxaanu ku qaybinaynaa 3 deegaan oo kala ah Macalin Barkad ama Googeyso iyo Fadac iyo Boocda waxaanu soo gaarsiinay 188 waxaanu ku faraxsanahay dadka jilicsan leeynaanu soo gaarsiino xilli ku haboon oo xaalad abaareed dalka ka jirto gaar ahaan gobolka Gibiley waxaan jecelahay inaan mahad celiyo cid kastoo ka qayb qaadatay raashinkaasi dadka jilicsan la soo gaaro oo ugu horeeyay gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo keedka raashinka qaranka dawladda Sacuudiga soo caawisay barasaabka gobolka Gibiley iyo maayirka iyo cid kastoo nagala shaqeysay hawsha dadka jilicsan wax soo gaarana aad iyo aad baan ugu mahad celinaa oo ka qayb qaadatay hawsha loogu talagalay raashinka dan yartaa ee masaakiinta ee abaaruhu ay oo ka hadlaya anigoo ah hayr tuulishii boocda kabaab waxa isoo gaadhay oo hay'adda nadfar ay soo gaarsiisay 65 qoys dadka kale wax may wada gaadhin laakiin intii dan yartaa ahayd yaa soo 65 qoys bay soo gaadhay waxaan ugu mahadnaqayaa cid kastoo hawsha ka qayb qaadatay dadka ay abaaruhu ay naafiyeen ilaahay baana mahadle raxmaadka iyo nimcada kalena ilaahay baa mariya intaasi way soo gaadhay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore magacaygu Cabdilaahi Axmed Maxamed Cumar tuulada Guddiisa Bari ee Macalin Barkad waxaan halkan maanta lagu bixinayaa raashin 50 qoys ah oo ay soo gaarsiisay Nadford waxaan dawladda aad uga mahadnaqaynaa raashinkaasi 50 qoys ah ee ay maanta soo gaarsiisay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin hawlwadeennadana aad iyo aad baan u salaamaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh